odayaal waxgarad siyaasiyiin iyo haween ka soo jeeda mataanaha gobolka Togdheer oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa waxay garafka ku dhifteen safarkii u dhawaan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu ku tagay magaalada Addis Ababa caasimadda dalka Itoobiya waxaana xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi mataanaha gobolka Togdheer ay ku dhaliileen inay xukuumaddiisu baabiinayso qarannimada iyo jiritaanka Soomaaliland wasida hadalkooda u dhigeen iyagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa hadaladoodii kamid ahaa madaxweyne Muuse Biixi markii uu Addis Ababa tagay ragii horeba sheegeen madaxweynuhu wuxuu soo noqday isagoo ah maamul goboleed Hirshabeelle kala ah ama Galmudug kala ah ama Xamdoobo kala arintaasi waa distoor jebin Muuse Biixina doorashadii xaaraan iyo xalaal wuxuu doonaha ku fuulo waa loo daayay marka wuxuu maanta ku fadhiyay sharci bay ahayd sharcigu ku fadhiyay haduu jabiyay isaguna ma fadhiyo wuxuu noqonayaa qof lamida dadka Soomaaliyeed waliba laga hadhi maayo inta maxkamad sharciye loo helayo dawlad weyn oo ahayn Soomaaliland leeyahay oo koobiya sagaashankii halkan waxaan ku dhig loogu xudul xiray baynu ahayn Soomaaliya dawladda kaliya ee waxaan ku ka muuqatay ay ka jirtay inuu ahayn goorta leeyo celiyay maamul goboleed wallahi anigu taa Muuse ka jawaabi doona waxa la Muuse waqtiga ku qaban doona hadii aan hashi hoosteeda ninbay ka weydibay Soomaalidu tiraada ninka afariya sagaashan ka farxaymi ee wixii looga ka sameeyay ba tahay ninkii waxaan ku Cabdiraxmaan Tuul ka daba qeyliyay ba tahay ninkii agaal ka daba qeyliyay ba tahay ninkii riyaalaha guriga naga qabsanay ee degad baan kaaga soo saaraynaa ba tahay Muuse waa ilaahay bahadi maradii kuwii koobiya sagaashkii aad ku lahayd waa federaal maanta la doorashada kaga qaaday waa federaal hadii aad dalkii maanta adigu iibisay gacantaada ku dhimatay waa haday ku soo sagashaa kulmiya ku shiriyo ugu tagay halku tagay meeshii uu tagay tuuladii reerkiisu tagay inuu Soomaaliland ugu shiro uu tagay xukuumadeena dhisan wuxuu tagay Soomaaliland kala qaybinteeda gobolka Togdheer iyo bari aflaagadadiisa uu tagay meeshii joogay marka inagu waxay leenahay Soomaaliland si uu soo celinahay Soomaaliland jirta kulmiya dambo dhisan si uu soo celinahay yaynu ka tashanaynaa aynu go'aan ka gaadhanaa idinkuna waxaad doonanaa ina ka dhiirataan dadkiina baabaay dadkiina Soomaaliland intuu tagay Itoobiya u tagay ayuu u baabiyo oo la soo shiray ay xalayna ugu kula soo ay la joogeen arkayna diyaarada uga soo degay madaxweynuhu intuu loo yeero oo uu tago in la yiraahdo waxa qaado oo wixii soo qaatay kamaynu filayn waxaanu ka filaynaa inay yiraahdo waxaan noogu yeedhay waxbaanu qaybsanay dawlad baanu ahayn annaga Soomaaliya ugu horeeyay wax calanka Soomaaliyeed taaga annaga ugu horeeyay xagga dagaga soo qabatay inuu doodabaan maanta ka eegayn kama eegaynin inuu wax iska soo qaato laga saxeexo dabadna kaan waxa weeye Muuse Biixi halkan wuxuu inaga tagay isagoo ku tala galay inuu farmaajo kula kulmo Itoobiya ayuu halkan inaga tagay asahaatee mayaasha baarlamaanka waxa aan faraynaa iyo guurtidaba inay arinta si degdeg wax uga qabtaan oo waliba golaha baarlamaanku impeachment ku qaado Muuse Biixi la yaab keenay oo reer Soomaaliland wax garadkoodii aqoonyahankoodii culimaadoontoodii mujaahadiinta waddanka u dhimatay ama u jajabtay ama u naafadii ay maanta murugeysanayaan bayin waxa geeyay in farmaajada la hadlaba iyo koonfur Muuse miyana dagayn soddon dawladood oo Soomaaliya caawinaya oo doonaya Soomaaliland in la gaadho ilaa barbara gadhka la iskaga xiro oo dawladda itaalka daciifka ah ee Soomaaliya caawinayay oo soo dhaafi kari waayay balcad awood ilaahay balcad ugu soo dhaafay yaqiintaada Muuse ma moodayn in la bilaawaan tahay waxaan islaamnimo ay araga laakiin nasiib darro islaamku dhanba cabdu diinaara
وحلي نبا لبا نبا أو رهب برعاوة وحي كتغين برعو ضينا وحي قالين هديل هرقيساه هديل كيبا يعني حال هايسا مركاسي وحي وحي طيح وان هاينا طيح حيبا قالين وحي مسؤولي طيح نوكي بيلان طيح ولفتي سموكي طبعا ميا كوريغيسان بي سلنا على كتوسينيس ميا كوريغينا halkii wax kale keegay madaxa xariyo isku yaala u soo dhiga tabeena waxa dhacday nimankii waxay leeyahay hargeysa dayaxeeda ku wareegto inta iska kacaan hargeysa dayaxeeda ku wareegto waxaan uga jeedaa muusow ha ku wareegin madaxweyne ee gobolada Soomaaliya way kala fiican yihiin waxa ka weyba laga fadhiyaa in maanta dalkii raadkiisii dib loo qaaday oo waxa weeyaan dib ugu celiyay in biixi waa mid hurtila ah waa loo yeeray qoraal baa loo dhigay saxiix baa leeyahay maamul goboleed buu ku soo dhawaaqay waxay Soomaalidu taanihu la xubin wax qarsanaya baa moodaa war muxuu u soo bandhigi laayay oo laayay waxa uu leeyahay soo bandhig dadka waxay lagu soo faray lagu soo faray lagu yiri hostel ka saxeexday u soo bandhigo waxa tiraahdo Soomaaliland odayaashan iyo waxgaradkan iyo haweenka iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda mataanaha gobolka Togdheer shirkan jaraa'id ay ku qabteen magaalada Burco ayaa ku soo beegmaya xilli xukuumadda Soomaaliland wali aanay soo bandhigin waxyaabaha ay ka wada hadleen madaxweynaha Soomaaliland iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Cabdiraxmaan Cabdilaahi Xasan Camaar telefishinka caalamiga ee Somali News magaalada Burco.